faasiqnimaday samayn jireen darteed ayaan u taabanaya qul waxaa taanay maxamedow laa aquulu lakum in oran maayo cindii aniga agtayda waxaa ahaaday khazaa'inullaahi kaydadka ilaahay baan hayaa idinma odhanayo walaa aclamu lghayba qaybkaan ogahayna idin odhan maayo walaa aquulu lakum idin odhan maayo innii anigu malakun malag baan ahayna idin odhan maayo in attabicu ay maa attabicu ma raacaya ilaa maa yuuxaa ilaya wixii aniga xaggayga loo waxyooday mooyaane qul waxaa tihi hal yastawii miyay siman yihiin alacmaa kan indhaha le ee xaqa ka indhabeelay waa gaalkiiya iyo walbasiir iyo ka wax arkaya xaqu u muuqdo waa mu'minkiiya afalaa tatafakkaruuna war miidaan fakarahayn oo caqliga ka shaqaysiinahayn waandir udig bihi bilqur'aani qur'aanka waxaad ugu digtaa aladiina kuwa yakhaafuuna ka cabsanaya an yuxsharuu in la soo hortaago oo loo soo xashiriyo ilaa rabbihim rabbigood xaggiisa loo soo xashiriyo laysa lahum xaal awsan u sugnaanin min duunihi alla sokadii waliyun mid xigta aysan lahayn iyo walaa shafiic iyo mid u ergeeyo toonna lacallahum yattaquuna likay yattaquu say alla uga cabsadaan kuwa qur-aanka ugu digo ugu sheeg walaa tadrud ha caydhinin aladiina duulkii yadcuuna baryayay rabbahum rabbigood baryayay bilghadaadi gelinka hore iyo walcashiyi gelinka dambaba kuwa ilaahay baryaya ee ilaahay caabudaya gelin hore iyo gelin dambaba kuwa ha caydhinin oo dushaada ha ka eryin oo sida asbaab nusuulka kala duwan ku soo aroortay quraysh waxay jeclayd odayaashoodii isla weynaaye kibray rasuulka markay la fadhiisanayaan inuu iska caydhiyo masaakiinta ag fadhida ee addoommada iyo dadka meelaha aan maka ahayn ka yimid iyo inuu iska caydhiyo waxay odhan jireen annaga iyo kuwaasi majlis ma wada fadhiisan karno